السلام عليكم دمانتين waxaan rajeynayna wada caafimaad qabtaan maanta waxaan ka hadli doonaa question type-keenii labaad oo ah true and false-kii true false iyo not given bal waxaan isla eegi doonaa su-aasha ama question type-ka noocan aad u waajihi lahayd aanad dhibco fiican uga keeni lahayd question type-keena reading-ka true false and not given-ka waxay isku yara egyihiin mid la yidhaaho yes no not given not given tani waxay kaga duwan tahay yes true and false and not given waxay kaga duwan tahay yes no not given horta saa looga shaqeynaya way isku egyihiin oo isku si baa looga shaqeynaya laakiin kaliya tan waxay ku yar kala duwan yihiin passage-ka wuxuu ka kooban yahay passage-ka true and false ta isku jirto facts buu ka kooban yahay ama wax science uu ka kooban yahay kan kale yes no not given kana waa opinion-ka magaranayay outer-ka weeyaan marka intaas ay ku kala duwan yihiin laakiin sida looga shaqeynayo magaranayay iyo sida loo waajahayo waa isku mid marka magaranayay answers-ku mar walbana in order ay yihiin answers-ka ta koobaad oo kale bas laga yaabo paragraph-ka koobaad inaad ka hesho talabaad oo kale inaad ka hesho paragraph-ka labaad saddexaad oo kale inaad paragraph-ka saddexaad ka hesho marka answers-ku order-kaas u socdaan oo ta ugu dambaysa ka helimaysa paragraph-ka koobaad ama talabaad ka helimaysa paragraph-ka koobaad adigoon ta koobaad aan helin marka mar walba saa ayay u isku daba socdaan oo ay u kala horeeyaan marka lagu leeyahay true marka doonanayso true waxa weeyaan the correct information is given mar walba haddii aad true aad dooranayso waa inaad information-kiyo sidiisiya waa inaad ka haysataa waa inaad ku haysataa passage-kaad haysato information-kiyo sidiisiya waa inaad ku haysataa passage-kaad haysato marka uu false yahayna waa different information is given for example contradicting the statement for example passage-keena waxay noogu qornaaba cali wuxuu tagay cali maybe wuxuu tagay cali is going to Dubai oo kale okay waxaana true and false teena ku jira ama su'aalihiina ku jiray cali wuxuu tagay Dubai cali wuxuu tagay oo kala tusaalahan kale to Kuala Lumpur ama magaalo kale Hargeysa maxaa markaa halkaa kaaga muuqda inay contradictions ku sameynayaan oo wixii passage-ka kugu jiray maaha wax kale lagu qoray markaas kale maxaa dooranaysaa false baa dooranaysaa not given waxa weeyaan waa marka aanad information-ka aanad kaba helinba aanad ka helinba passage-ka aanay ku jirinba waynu isla arki doonaa we don't know the answer or there isn't enough information answer-ka kuma jirtaba dee uma garanayno answer-kii keywords-kii baynu ka baadhnay keywords-kii su-aalaynu ka baadhnay passage-ka waynu ka weynay hadhow markaa maxaynu dooranaa not given baynu dooranaa sababtoo ah kamaynaan helinba dee markaa kamaynaan helinba passage-ka tibiska marka ugu horeysa waxaa la yidhaahaa waa inagii isla soo marnay tibisku badanka reading-ka waa isku wada mid marka don't read the passage first mar walba waynu aynu ka hadlayno su-aalaha ama type-kay doonaan ha noqdaane maxaynu idhaahnaa passage-ka marka hore akhriyin marka hore maxaa samaysaa read just the title-ka akhri then go to the first question-kaad haysato toos u aad then underline the keywords in the question underline garayso keywords-ka question-ka ku haysato then search for those words in the passage keywords-ka intaad qaadato ka baadh passage-ka ka baadh then underline them and read that part of the passage carefully try to get the answer marka hore ha isku dayin inaad passage-ka aad akhrido oo then su-aalaad ka shaqeyso waxaad isku daydaa inaad title-ka keliyaatay passage-ka akhrido go to directly questions then questions-ka markaad soo akhrido aad kusoo noqoto passage-ka oo aad ka dhex baarto magaranayay aad ka dhex baarto jawaabaha underline the keywords in the question then search for those keywords in the passage underline them read that part of the passage carefully try to get the answer inta ayaynu kusoo gabagabeyn doonaa points-ka bal imakana waxaynu isla eegi doonaa si toosa questionskeena oo aynu ka wada shaqeyn doono oo aynu soo wada saari doono maxaa not given maxaa yes maxaa not given maxaa true iyo maxaa false insha Allah taala aynu isla wada eegno examples-keena imaka waxaynu isla eegi doonaa examples-kan haysano
xagga maxaan lagu yiri marka hore maxaan noo kaliyaata title ka akhri title-keen waa kan how the brain perceives flavor and do the following statement agree with the information given in the reading passage in boxes 6 to 10 on your answer sheet, right? True imka wuxuu noo sheegay truedu maxay tahay falsedu maxay tahay not given kuna maxay tahay marka truedu if the statement agrees with the information, if the statement contradicts with the information, if there is no information on this. So waxaan ka bilaabinaa jawaabta su-aasheena koobaad. Mar walba maaha muhiim maaha inaad garanayso macnaha ku jira ama macnaha ereyga meesha kugu qoran, laakiin keliya waxa muhiim ah inaad fahanto su-aasha ood ka dhex baari karayso ma garanaysaay passage-kan ka dhex baari karayso. Iminka ta ugu horeysa both taste and flavor can be experienced only in mouth. Taste by noo ah keyword, flavor na keyword by inoo tahay, can be experienced only or keyword yadna mouth keyword. Ala taste kii flavor kaba labadaba waxaynu kaliya ku dhadhamin karaynaa mouth-keena. Aynu isla eegno halkan passage-ka mar walba passage-ka koobaad ka dhex baaraysaa waad akhriyaysaa si careful aad iskaga akhrisanaysaa waxaad ka dhex baaraysaa ma garanaysaa keywords-kaan haysano. halkan ta ugu horeysaba halkan waxaan noo soo dhigay taste flavor na halkan noo soo dhigay then iminka taa ugu horeysa waxaan halkan baynu soo akhrinay adigu si degan iskaga akhriso bal halkan baynu aragnay as if that were not complex enough irritant, for example carbonation or the coolness of mint are detected not by taste or smell. Okay, laguma dareemo baa la yidhaha mintiga taste ama smell but by the trigeminal sense. Okay, part of the touch system adapted for the mouth. Okay, taa ugu horeysa inagu waxaan nidhi marka hore waxa keliya ta lagu dareemayo keliya ta afka baynu nidhi halkan su-aasheena ugu qoran ma garanaysaa afka ayaa lagu dareemaa sababtay taas ugu horeysa false inoo noqonayso xaggan contradiction bay ku noqonaysaayo halkan waxaa la yidhaahday mintigoo kale wax lagu dareemaa laguma dareemo taste ama smell waxaa lagu dareemaa trigeminal sense marka taasoo kale contradiction bay noqonaysaa false bay noqonaysaa wax wixii halkay noo yaalay statementka halkay noo yaalay wax kasoo horjeeda baa ma garanaysaa inoogu qoran passage-ka. Talabaad aynu u gudubno some elements in flavor involve neither taste or smell. Elements kamida flavorka ayaa aan ku jirin aan lagu dareemin taste ama smell oo kale labadaba tanna waa tan uma loo kala rogayo marka halkan oo kale example keenan oo kale maxaa kamida in ma garanaysaa inaan lagu dareemin flavorka oo kaliyaata ma garanaysaa taste ama smell ayaa halkan nooga cad oo waayo halkan waxaa lagu dareemayo kala qaybta trigeminal sense la yidhaaho marka waxay noqonaysaa jawaabtaasi true bay noqonaysaa. Statement-kan un bay noo kala paraphrase gareeyeen oo ma garanaysaa statement kala un bay noo soo dhigeen un. Tan saddexaad ice cream manufacturers are at the forefront of the research on flavor. Ice cream manufacturers baynu raadinaa oo keyword inoo ah forefront of the research on flavor. Ice cream companies kaynu raadinaa ama ice cream manufacturerska. haddii aad ka weydo wax information imika taa information wax ice cream ku saabsan ama wax ice cream la xiriira passage-keena kuma jirto ama kuma haysano marka haddii aad haysato noocaas oo kale aad hesho waxaad leedahay ma garanaysaa waa not given
sababta not given u tahay waxa weeyaan haddii aynu si walba uga search garayno imika passagekeena aan uga search garayno inoo soo saar ka heli mayno ice cream manufactureska markaas sidaas aad uga shaqaynaysaa haddii statementku uu contradict gareeyo waxa ma garanaysaa meesha kugu qoran tusaale ahaan oo kale statementka aad passageka ka helayso uu kasoo horjeedo false buu noqonayaa haddii passageka waxa kugu qoran ay isku macno noqdaan true buu noqonayaa haddii aanu ku jirin passageka gebigiisaba waxaad odhanaysaa waa not given insha Allah taala waxaan rajaynayaa inaad fahanteen ma doonayo inaan videoga dheereeyo ood ka caajistaan wixii aad su'aalo qabtaanna inaad nagula wadaagtaan commentiga ayaan rabnaa khayr badan baan idiin soo rajaynaynaa insha Allah taala